بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. soo dhawaada dhammaantiin waxaanu ku guda jirnaa casharaanteena ku saabsanayd qawaacid alqiraa'ati walkitaaba, xeerarka loo dejiyay akhriska iyo qoraalka luqada carabiga. khaasatan waxaanu ku jirnay wasl alxuruuf, xidhiidhinta xuruufta iyo marka ay kulmaan sida loo qorayo. waayahay, halkan waxaanu ku qori jirnay xarafka oo goonidii u qoran. halkan waxaan kusoo gudbin jirnay xarafka oo bilowga kelmadda dhacaya, kadibna waxaan soo bandhigi jirnay xarafka oo kelmadda dhexdeeda dhacaya, kadibna waxaan soo gudbin jirnay xarafka oo kelmadda aakhirkeeda dhacaya. waxba yaan hadal badan kugu sii wareerinay, horay baynu iskaga gudgalaynaa haddii rabbi idmo. cashirkeena caawa waxaa inooga bilaabmayaa xarful cayn. xarful cayn kelmadda marka waxaan doonayaa xarafkan uu kelidii iska yahay qaabkan ayuu u qormi jiray, kelmadda bilowgeeda markuu dhacana qaabkan ayuu u qormayaa. waaye xarful cayn qaabkan markuu u qormay kelmadda bilowgeeda oo dhacay waxa ka go'day un dabadii dheereed ee sidaa u noqonaysay sidii ay qaynka waxaan doonayaa andhaho jiimka iyo xaa'da iyo kha'daba ay uga go'day, ilaan qayb sidan ay wateen iyaguna moogta. marka markay kelmad bilowga dhacayaan madaxun baynu la soo hadhi jirnay, intaasaynu ka goyn jirnay. caynkana sidii oo kale ayaa lagu sameeyey oo madaxii ayaa isagana lala soo haray. halkaasi hadda waxay diyaar u tahay in kelmad kale lagu soo xiri karo. marka aynu keenno kelmad aynu ku xidhanno ba'daasoo kale aynu iskaga xidhanaynaa oo waxa weeyaan inta badan aanu inagu adeegsanno markaynu kelmadaha isku xidhxidhayno. ay xaraf kaloo lagu soo xidhaa saasuma noqonaya caynku madaxiisa, qaybtaadama way ka go-aysa. dhexda hadduu dhaco tamaaman ayaa uu isku bedelay. iska fiiri sidii aynu daalka iyo daalkaba u sharaxnay, marka ay xagga hore wax kaga soo xidhmaan ayaa waxa weeyaan kana bal aynu u sharaxnaa, sababtoo ah wuu nagu cusub yahay isaguna si ay labadaas bay nagu cusbaayeen. laakiin qaab qoraalka sida loo sawirayo kuwa kale xuruufta kale waa isku miduune, wuxuunbaa ka yara googo-aya. waayo kuwan laakiin caynkan oo kale markuu dhexdaa dhacay de waa kan imika caynka sidaa u yaalla ee kelmadda bilowgeeda yaalla, ama caynka sidaasoo kale u yaalla waxa weeyaan kelidii iska madaxiisaas iyo madaxan ma isku mid baa ma isku mid maaha, tamaaman u isbedelay. marka waanu yara yani balbalaarinayna insha allahu tacaala, si fiican ila soco, haddii kale kaa fool xumaanaya. halkaa markaad kasoo bilowdo ee halkan uu xarafkii kaga xidhan yahay sidaa ha u kicin, iska ilaali, xagga ha u kicin. waxa weeyaan halkaa markaad joogto ee saasoo kale aad halkaa marayso xaggana loo kacaya. si fiican ay fiiri halkay joogto fartayda yar sidaanaad usoo noqonaysaa, halkaa ayaad soo gaadhaysaa, kadib baad soo kacaysa. mar labaadan kugu celiyo, halkan xarafkii kale ayaa kaga xidhan, saabaa horta loo yar kacaya oo laynkii markuu tusaale halkaa imika fartaydu halkaa fartaasi ay joogto, halkaa fartaasi ay marayso ayaa laynka u maraya. marka sidaanu laynka u dul yaalla oo halkaas markuu joogo sidaanu looma sii wadaye kor baa loo yar kacaya. haye kadibna saa looma noqonaye halkaa markaad marayso sidan ayaad u kacaysa, halkaasaad gaadhaysa, kadib ayaad haddana saa usoo dul marinaysa halkaa, saas ayaad leedahay. qalinku haddaanu kuugu qornayn qaabka loo qoro marka khadka la qorayo waxa weeyaan intan dhexdu inaanay kuu buuxsamin baa laga yaabaa, laakiin dhib male. halkaasoo kale markaad soo gaadhay saa usoo dhex noqoto, dhexda hadday banaanaato waxa dhib male, saa unaskaga sii wad. xarful cayn mar kale aan kugu celiyo weliba, halkaas ayaad ka bilaabaysaa, san ayaa loo yara kacayaa, halkaas ayaa la soo gaadhsiinayaa, sidan ayaa koofiyaddan lagu dul noqonayaa, halkaas ayaa saadeedna loo sii deynaya. waay xarful cayn kelmadda dhexdeeda markuu dhaca waa sidaa. bal kelmad baynu xagga hore ka marinaynaa, ba'dii aynu iska adeegsan jirnay, xagga dambana isla ba'dii baynu ka marinaynaa. kelmadda dhexdeeda markuu dhaco caynkii sidaas ayuu u ekaanayaa. kelmadda aakhirkeeda hadduu dhaca maxaa dhacay? horta madaxu waa sidii un, si fiican u fiiri, madaxu waa sidii un. kelmadda dhexdeeda markuu ku jirana sidaan unbu ahaa, iminkana waa sidan un. sidii un baa loo yar kacayaa, saas oo kale loo dhanaya, halkaas la tegayaa, deedna saas ayaa loo soo kacayaa. laakiin qaybtii dambe ee markii hore ka goday ayaa imika usoo noqotay, maadaama dee kelmadda aakhirkeedu dhacay. xuruuftaanu soo marno o dhan kelmadda aakhirkeeda markay dhacaan qaybtan dambe ama wax sidaan usoo rogma ha noqdo, sida siinkii iyo shiinkii iyo saadkii iyo daadkii ay lahaayeen, iyo fa'da noo soo socoto kale tusaale ahaan. wax saa usoo rogma hadduu yahayna wuu usoo noqonaya, wax sidan u rogma hadduu yahayna sida caynkan iyo qaynka ku xigay iyo kha'dii iyo yani waxa weeyaan xa'dii iyo jiimkiina soo marayo way iskaga soo noqonayaan, maadaama dee kelmadda aakhirkeedu dhacay oo wax xaggan kaga sii xirmayaani jirin. laakiin xaggan madaxan sidii markuu dhexda ku jiray buu ahaanaya, waayo dee xaraf xagga hore kaga xidhan. waay marka xarafkaanu kusoo xidhno saas ayuu u ekaanaya. xarful cayn warkiisu sidaas ayuu noqonayaa. haddaad ila fahantay caynka, xarful ghayn isna qaab qoraalkiisu waa sidaa un, maadaama markuu kelidii yahay baa isku qaab qoraal ahaayeen oo waxa keliya kala duwaya uu ahaa un dhibicda. markan ay kelmad bilowgeeda ay dhacaan ama kelmad dhexdeeda ay dhacaan ama kelmad aakhirkeeda ay dhacaanna waa isku qaab qoraal. bal fiiri hadda, waa kan isagoo kelmadda bilowgeeda dhacay, waa kan isagoo kelmadda dhexdeeda dhacay oo labada dhinac baynu ba'di ka dhigayna,
waa kan isagoo kelmada aakhirka dhacay isla baadi baynu ka horreysiinayna way waa tamaaman waxa la wuxuu kaga duwan yahay caynka ma jiro oo aan ka ahayn dhibicda xarf alfa ayaan iskaga gudbaya marka fa qaab qoraalkaygu waa sida tan markay kaliya tahay waa naga soo marnay dhexda markay dhacdana sidan ayay noqonaysaayo bilowga kelmadana dhaahda markay dhacdana saas ayay noqonaysaayo kaliya dabadan dheer afkan dheer baan doonaya seen soo rogmanaan baa ka go'ay marka madaxiin baa la sawiray dhibicdeedina waa la siiyey bas halkan waxay diyaar u tahay in lagu sii xidho xaraf alla xarafkii la doono way bacdayni baynu ku xidhanayo u fiirsaadaba waka saas ayay noqonaysaa qaybtaasun baa ka maqan madaxeygii ba iska wadataa laakiin afkaa dheer un baa ka maqan kelmadda dhexdeeda markay dhacdo xoogaa yar baa la moodaa in isbeddel yar yimiday oo fiiri haddaa markay kelmadda bilowdiga saa ugu jirto iyo markay dhexda ku jirto isku yar qaab maha marka saan ayaa la odhanayaa qaab qoraalkeeda saas ayaad ula yar kacaysaa halkaasoo kale ayaa waxa weeyaan aad ka soo rogaysaa saas ayay noqonaysaa qaabkan inay kugu yar qurux badnaan weydo qaabka shanta carabiga u qoran oo kale ayaa laga yaabaa inay kugu yar fiicnaan weydo marka aad qalinku aanu kugu qornayn qaabka khadka laakiin waxa weeyaan dhib ma lahan haddii sidan una iska soo rogto alxaasil caynkaasun yeena kaaga ekaanin caynkuna yaanu iyada u ekaanin caynka qawaacidii aanu sheegnay baad ilaalini in saad u yara kacdo oo xaggaadu la kacdo kadibna aad saa u kacdo aad halkaas soo mariso fa'danna waxaad dhowraysaa iyadna halkan yar iyadna furjay ku leedahay sida caynkuba furjadaas oo kale uu lahaa marka saas ayaad kor ula yar kacaysaa kadibna saas ayaad yara odhanaysaa waa ku ka way xaggan hore aynu kelmad ka soo marinaynaa xagga dambana kelmad baynu ka marinaynaa si aan kuu tusiyo inay kelmad dhexdeed dhacday xaraf baan ka marinaynaa xagga hore baan ujeeda xagga dambana xaraf kale kelmad dhexdeed inay dhacday si aan kuu tusiyo fa'dii qaabkaygu noocaas ayuu noqonaya aakhirka kelmadda marka dhacdana waa isla sidii uun xagga madaxa sidii hadda dhexda markay ku jirtay ay tahay weeyaan xagga madaxa laakiin dee afkayga dheera ayaa usoo noqday maadaama ayna xaggan wax kaga sii xidhmayn oo kelmadda aakhirkeedii ay dhacday way halkan ayaan kaga soo xidhaya haddaba wixii la odhan jiray xarful baa aan iska adeegsan jirnay si aan kuu tusiyo inay kelmadda aakhirka dhacdayo xagga hore ay wax kaga xidhan yihiin faadana qaab qoraalkaygu qaabkaas ayuu noqonay aan iska masaxa haddaba waan sii soconayahay way ciwaanadan waynu samaysana waynu u baahannahay way waxaan soo gudbinaya iminkana xarafka loo yaqaano xarful qaaf oo fa'da ku xiga qaafka qaab qoraalkiisu markuu kala yahay sidan ayuu ahaa sida fa'da uma fidsanayna halkan waa yara gaabnaa waxaan kusoo baraarujinay casharantii hore way fa'du qaafku baan doonaya hadduu kelmad bilowgeed dhaco waa sidii fa'da oo kale kaliya intii dambe ee halkan yani soo rognayd ayaa ka gooday sida fa'daba intii halkan soo rognayd ee yara dheerayd ay uga gooday isagana yaroo gaaban u baahayde waa ka go'aysaa halkan in kelmad lagu soo xidhiiriyo ama xaraf kale lagu soo xidhiiriyo ayaa diyaar u tahay xaraf kalan kusoo xidhiiriyo ba'diya saas ayaa warkiisa ku dhanyay way dhexda markuu dhaco waa isla qaabkii fa'du kaliya labada dhibcood inuu kaga duwan yahay labada dhibcood waayo dee madaxii unbaa ka soo hadhay madaxa fa'da way ka sinaayeen fa'da waxaynu diidanayn kama sinaynu lahayn intan ay ahayd intan halkan taallo oo qaafku kaa waa yara gaaban yahay fa'duna waa tii fidsanayd dheerayd marka aakhirka kelmadda xataa markuu dhaco intan way soo noqon doontaa iyadoo sidaa u gaaban oo sidii fa'da uma dheeraanayso laakiin dee markay dhexda ku jiraan ama bilowga ku jiraan waa isku qaab qoraal waayo madaxan weeyaan waxa soo hadhayo madaxana way ka horeba uga sinaayeen waayahay labada dhibcoodna dabcan kaga duwan yahay oo iyadoo hal dhibic bay lahayd baan xagga hore kaga soo xidhayaa xagga dambana baan kaga soo xidhayaa dhexda inuu dhacay baan ku tusinayaa qaafka qaab qoraalkiisu waa sidii fa'da way aakhirka markuu dhaco ka eeg qaybta usoo noqotay waa intii fa'da ilan maahay waa intii qaafka waxa soo noqonaysay qaafkaynu ku guda jirnay marka iyadoo gaaban ayay soo noqonaysaa ha isku dheereynin way madaxana waa sidiis halkaas ayaan kaga soo xidhaya wixii la odhan jiray maxay baa laakiin madaxa waxaad moodaa dhexda markuu ku jiray unbay fa'da caadi yani ay isku mid u yihiin halkan waxoogaa kala duwanaanshaa yeeli jira waayo fa'du halkaas ayay ka noqonaysay meelahaasoo kale ka noqonaysay oo sidaa ayaa afkii ugu furnaa laakiin tan sidan ayuu hoos ayuu u yarbaxaya oo hadda line baa halkaa maraya tusaale ahaan markaa dee meel line le wax ku qorayso boog line le markaa wax ku qorayso inagu waynu iska daynay meesha inaynu adeegsano sababtoo ah dee mar kasta laguma qoro wax line le wax laguma qoro warqad iska cado ee fooro caadiya wax lagu qori karaa moogta marka qawaacidda inaad fahanto maa muhiim marka halka hadduu imika linekii marayo kale qaybtan hoos bay uga baxaysaa marka saas ayuu yareeyahay marka saas intaad iska tiraa sii fa'da habad gaabi sidii halka haddaad ka noqoto way kaa fool xumaanaysa hoosu yarbax waka way qaafka warkiisu saas ayuu isagana inaga ganayay waxaan u gudbaynaa xarafka loo yaqaano xarful kaaf kaafka qaab qoraalkiisu sidan ayuu ahaa markuu kelidii yahay ama qaab yaroo kalena waynu soo marnay laakiin hadda kanaan iska adeegsanaya anigu marka uu kelmad bilowgeed dhaco tamaaman isna wuu isbedelay arkaysaan horta wuu isbedelay qaabkan ma ahaanayo sidan ayuu ahaanaya haddii kelmadda bilowgeeda uu dhaco qaabkii labaad ee aynu ku soo marnay waxa weeyaan duruustii hore aad ugu laaban doontahay markuu kelmadda bilowgeeda dhaco waa loo qori karaa qaabkii labaad ee kelidee uu ahaa waa loo qori karaa laakiin sidanna waa loo qoraa markaa sidan waa sidee
halkaas ayaad warka ka bilaabaysaa iska fiiri eegsa loo qoray iska fiiri halkaa ha ka soo bilaabin halkaa aad ka soo bilowdo ka fal xumaan doona halkan ka bilow halkan haye oo sootan wax ku xidhay iska daado halkan aan imika haye ka bilow halkaa gacantan ku haye ka bilow halkaa markaad ka bilowdo xarfu daal caadi la qoraya ma arkaysaa badalkii ma darkiin wax isbedel aad arkaysaa waa daal caadi halkaa marka daalka qorto ayaa tan halkan ka soo bilaabaysa halkan ka soo bilaa xaggan ma aha saa u kicino saa u bilaabin halkan ka soo bilaabaysa saasaad soo jiidaysaa dhaag waad ku xidhaysaa way warkaa ka dhigay marka hore halkan aan ka bilaabay daal caadi aan iska qortay kadib baan soo jiiday sanaan dul keenay dhaag bas halkan waxay diyaar u tahay inaad ku sii xidho xarf albaa ayaynu ku xidhana waa ku kaafka warkiisu markuu bilowga joogo waa sidaa kelmadda dhexdeeda hadduu dhacana sidan u noqonaya yara adagtahay iska fiiri waryaa say noqonaysaa halkan dee kelmaddii baa kaga soo xidhan saas ayaad u kacaysa alif saa u jiifta alif aad u adag weeyaan saana uma toosna sidaana uma jiifta waa alif yaro saa u xoodin saasoo kale u xoodintahay saasoo kale dhag 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 halkaa markaad joogto ayaad saas kaga joojinaysa haye halkii baad ka soo bilaabaysaa kii haddana saanaad ugu soo yarlaabaysa dhag warkaa u dhanyahay marka wuxuu aad u qurux badnaadaa marka la haysto qalin u qoran qaabkii khadka loogu talagalay laakiin imika waxa weeyaan adoo alxaasil qaab u dhowoon inaad u qorto unbaa laga rabaa sheekho qaybtan dambe waxay noqonaysaa daalkii caadigii ee waxa weeyaan halkan badee hoosta kaga jira ayay noqonaysaa marka qaybtan dee waa kuu samaysan tahay oo marka horaad sidaa u kacday halkanaad ka bilaabaysaa warka halkaasaad ka bilaabaysaa sidaas ayay noqonaysaa laakiin waxaad iska ilaalisaa uun halkan ha ka bilaabin fool xumaanaysa qaybtaa dhan ee bannaan ee halkaa imika fartaa dhan ay yani gashay ay gali karayso spaceka intaa le ku fadhida ayaa waxa weeyaan kor looga kacaya marka halkaa bartanka ayaa laga soo bilaabaya mar kale aan kugu celiyo halkan kelmaddii kale ayaa kaga soo xidhan sidaa ayaad u yara kacaysaa alifta nooca u jiifta ayaan toosnayn ayaad meesha dhigaysaa bartaa markaad joogto waad ka kacaysaa qalinka hoos kaga tegaysa halkaas ayaad haddana warka kasoo bilaabaysa halkaa markaad kasoo bilowdo afkeyga halkaa ayaad iskaga keenaysaa waad kasoo kacaysaa haddana mar kale bartankan ayaad ka bilaabaysaa sidan ayaad u yarjiidaysa bes halkan waxay diyaar u tahay in wax kale lagu sii xidho waay aan tusaaleyna haddaba iyadoo ay xuruufta ku xidhan tahay halkan dee bacdi baynu kaga soo xidhana waka halkanna bacdi kale aynu kaga xidhana waka kaafku markuu dhexda ku jirina waa sidaa waa xuruufta tamaaman isku bedeshay qaab kale marka ay kelmadaha dhexdooda galeen marka aad baad uga warhaynaysa kelmadda dhexdeeda markuu dhaco wuxuu iskaga qormayaa sidii saasoo kale ma arkaysa uu qornaa markuu kelidii ahaa ayuu imkana u qormayaa soo weyneeyo qaabkaas ayuu qormayaa laakiin dee halkan wax kaga soo xidhan marka markan uu iska fududiyay saasoo kale ad yar kacaysa alifta caadiga taagaysa waa qaabkii alifta halkaasi aliftaasaa taagaysa waayo dee markan wax ku xidhnayn xataa aliftaan ba iska haydo siaan ubayso aliftaan ba iska taagnay marka imkana iyadoo aliftii oo kale ah ayaa halkaa taagan halkaan baad halkaa bartaa yani waa ina farta ay gali karto oo halkaasoo kale ha ka bilaabina kor yarka iyadna halkaasoo kale aad ka bilaabaysaa saasaad iskaga soo rogaysaa yani intana waad dhigaysaa waa markuu kelidii ahaan kusoo marnay wey wax dhiba malahan marka xaraf kale aan kusoo xidhay saan ku tusino kelmad akhirka dhacay ba'dii aynu adeegsan jirnay ayaanu kusoo xidhnay arbacda waynu ku yara khalkhalnay malaha oo in badan baynu adeegsanaa war waa sax waynu ugu talagalnay waayo waxaan doonaya inaad xoogga saarto yani xarafkan cusub ee kolba aynu marayno laakiin kuwa lagu xidhayo aanad ku mashquulin baan doonaya laakiin adigu bedelo xaraf kasta aad ku xidho saas un bay ahaanayaan way waxay noo yimid xarfu laam ayaan imikana guda galayna laamku markuu kelidii yahay sidan ayuu ahaa kelmad bilowgeed hadduu dhacana sidan ayuu noqonayaa oo waxa ka go-aysa mar kasta inta la soo rogo way go'daa xuruufta marka qaybtan ama sidan ha loo rogo ama sidan kale ha loo noqday way iska go-ayaan marka qaybtan noonkoo kale ahayd ee sidan loo soo rogayay baa ka go'day aliftaa taagan iyo intaa yar ee halkaa taalloon buu noqday waxaas uu sidaa u samaynayaana waa suulkeer aan kuu sheegay weyaan taskaba tagtood aliftiisa aan u daysana dhamale bas alif wax lagu xidho buu iska noqonaya aliftii wax lagu xidho ma ogolayni alif wax lagu xidho kale buu iska noqonaya qaybtana ka go-aysa way balaynu wax ku xidhna haddaba waka baaban tusaalaan ku xidhana waka dee warkiisu saas ayuu ku dhayay kelmad dhexdeed hadduu dhacana sidan ayuu yara noqonaya iska fiiri intii alifta ahayd ee taagneedoo keliya ayaa kasoo hadhay waa kan ilaa halkani waa xarafkii kale qaybta ku xidhmaysa weeyaan alifta yar baasaa loo taagay alif caadi iska toosan weeyaan dabcan aliftu dee kolleydaba toosa umay toosnin halkaa imika fartaa maraysoo kale may hayni waxsaa u yar xoodan bay ahayd saana uma sii jiifto marka alif inay aad u yar toosantahay la moodo weeyaan saasoo kale markay noqoto halkaa ayaad ka yar bilaabaysaa sidii kaafkaba aanu halkaasoo kale uga soo yar bilaabaynay isna halkaa oo kale kasoo bilaabaysaa saas ayaad u kacaysaa bis intaa yar furjada yar ay fartaas yara gali karto ayay leedahay markaa saas ayaad u kacaysaa bas xaggana xarafka kaga xidhan xaggana xaraf marka waxa kasoo hadheen la sheegi karaa waa intaa aliftaas bal fiiri hadda xaggan ayaan kusoo xidhaya xarful baa xaggana ba kalaan ku xidhaya waka intaasaa kasoo hadhay laakiin qaybta yar baa saa looga yar kacay oo halkaa yar baa laga soo bilaaba waay laamku markuu kelmadda aakhirkeega dhaca waa sidan oo waxa weeyaan qaybtan waxay ugu xidhmaysaa un sidii dhexdaba marka ku jiray ugu xidhmaysay
والف يرد بس لو تجي حكى هربا لقصب لا انت هربا لبنينيا قيبتن dee nuunka ahayd xagga dambe uu kaga xidhay way u soo noqonaysaa sidee xuruufahan kalaba dee ugu soo noqonaysay ilaa kelmada akhirkeed buu dhacay asaasoo kale ugu soo noqonaysaa xarf albaa ayaynu halkan kaga soo xidhana qaab qoraalka laamkuna sidaas ayuu noqonayaa markuu kelmada akhirkeeda dhaco way halkaas ayaa cashirkeena caawi nagu egyahay waxaan u gudbaynaa iskama soo xisabaradan wixii aynu u bixinay yani at-tatbiiqaat qaababka aynu waxu muraajacayno marka waxaan oran jirnaa turuq al-muraajacati thalath qaababka aynu waxu muraajacaynay saddexda way waa sidii wax naga caaw ka gadisan ma jiro qaybta koobaad waxay noqonaysaa inaan xaraf soo qabto sida kaafkaas oo kale oon ku raahdo waa inaad kelmadda bilowgeega ridaa bacdan waxay diyaar u tahay in xagga hore wax lagaga xidho marka kaaf xagga hore wax lagaga soo xidhayo kaaf yani waxaan doonayaa xagga hore jira oo xagga dambe wax lagaga xidhayaad meesha soo dhigaysa waayahay halkana waxaan kuu dhigay bac labada dhinac yani joogta oo bilowga iyo aakhirka joogta kaafaad dhexda u gelinaysaa halkana kaafkii oo kelmadda aakhirkeega joogaad keenaysa way xaraf kalan soo qabanaya tusaale miimkaasoo kalan soo qabanaya kelmadda bilowgeegaad ridaysaa baadana ku daba xidhaysaa kelmadda dhexdeedaad ridaysaa baadanaad labada dhinac ka maranaysaa kelmadda aakhirkeega ayaad ridaysaa oo bacdanaad ka horreysiinaysaa waxaan keenayaa haddana xarful ghayn ghaynka waxaad keenaysaa isagoo kelmad bilowgeed dhacay oo bacdanaad ku daba xidhaysaa waxaad keenaysaa isagoo kelmad dhexdeed dhacay oo bacdanaad labada dhinac ka maranaysaa waxaad keenaysaa isagoo kelmad aakhirkeed dhacay oo bacdanaad ka horreysiinaysaa way saddexdaa markaad qaabka u dhigto qaabka labaad ee u muraajacaynaysaa wuxuu noqonayaa inaan xaraf kala soo qabto sida fa oo kale xaruftii aanu caawa qaadanay kamida fa'daas waxaanu samaynaynaa fa kale aynu ka dambaysiinaynaa ama taa ayaan hadda iska keensaday dhib male xarfu taa ayaa hadda meesha inoo joogta bas waxaa la rabaa inaad xaggan hore ka dhigto xarful fa oo kelmad bilowgeeda aad rido waxaa laga rabaa haddana ta'dan meesha taalla xarfu taa hadda meesha inoo taalla xaggan dambana ta kale inoo taalla dhexdeeda inaad fa'daa dhigtaa la doonayaa waayahay ta ayaa haddana bilowga inoo taalla inaad xaggan haddana dhigta baa la doonaya maxay fa'dii aad ka dambaysiiso waay waxaa inoo yimid haddana xarful cayn caynka inaad shinkan ka horreysiisa baa la doonayaa labada dhinacba haddana shinka ka maranayna caynka inaad dhexda u dhigta baa la doonayaa caynka inaad shinkan meesha yaalla ka dambaysiisa la doonaya oo aakhirka kelmadda aad rido waay iminkan waxaan u gudbayaa xarful laam marka uu kelmad bilowgeed dhaco ayaa la doonayaa inaad keento oo za'dan aad ka horreysiiso haddana waxaa la doonayaa inaad kelmadda يعني waxa weeyaan dhexdeeda aad rido oo za'dan kana horreysiinaya kana dambaysiinaya dhexdaad u gelinaysa marka waxaanad keenaysaa haddana isagoo kelmadda aakhirkeega dhacay oo za'dan ayaad ka horreysiinaysa dabcan xuruuftan waynu soo wada qaadanay oo xaraf aanan weli soo qaadanin kuma jiro marka hadday ka mid ahaayeen xuruuf aan ogolayn in lagu xidho waxa ka dambeeya dee waad ag dhigi doontaa uun marka waad ka ilaalin doontaa marka iyaga laftarkeegu muraajaco iyo xuruuftii hore kugu noqonaysa way xataa waxaad samayn kartaa sidii mararkii hore baynu samayn jirnay xarful faadaas oo kale markaad marayso alifkii kaga soo bilow oo alifka ka horreysii oo yani waxa weeyaan ka dambeysii oo dhexda u geli oo bacdi ku xijisii oo jiimkii oo saa u soo wad ilaa aad ka soo gaadho xarafkii caawi noogu dambeeyay aynu maraynay marka muraajacadaas adaa ka shaqaysiin doona sideedabana waxaad ogaataa ardayow had iyo jeer yani waxa weeyaan inta adigu aad dadaasho aad qoraalkan farabadiso ayaa waxa weeyaan ay cilmigani uu kuu baxaya qaabka qoraalka iyo akhriska ku saabsan laakiin haddii aad duruusteeda iska dhagaysato dee waxay noqonaysaa in qof wacdi dhagaysanaya ama dee muxaadaro iska xaadaro kalun baad iska noqonaysaa adiga waxba kuu kordhi maayaan marka adigu inaad meesha tacab gelisaa la doonaya way waa sida xirfadaha oo kale xirfaduna haddii lagu sharaxo un kuma filla waxay u baahan tahay inaad waxa weeyaan adigii aad baashirto camalkii qabato qaabka saddexaad aanu muraajacin waxay noqonaysaa sheekhow inaanu nala uktub ma yumla calayka waxaan lagu yeedhinayo qor marka qaabka hore ee lagugu yeedhinay wuxuu noqon jiray bitriiqatan cashwaaiya qaab isku dhex daadsan oo miin baa lagu soo qabanaya kelmadda bilowgeega rid baa lagu oranaya dhexda rid aakhirka rid haddana cayn baa lagu soo qabanaya haddana kaaf haddana laam waa isku ka dhex laaqaya qaabka labaad wuxuu noqonaya bitriiqatin murattaba qaab tartiibsan lagugu soo qoro oo lagu dhaco caawa waa horta wixii aad qaadatay halkuu ka bilaabmayay xaraf hebel buu ka bilaabmayay tusaalahaan tiraahdo cayn inay caawi nooga bilaabmaysa baan filaya caynkii in lagu dhahdo kelmadda bilowgeega rid dhexdeeda rid aakhirkeega rid haddana gaynkii sidaa ku samey haddana fa'dii sidaa ku samey haddana qaafkii sidaa ku samey haddana kaafkii sidaa ku samey haddana laamkii sidaa ku samey waay qaabkaas haddii aad weyday cid sidaa kuu caawiso baan nidhi labadan hore ayaad ku kaaftoomi doontaa waa ayna ku anfacayaan ilaahay idankii intaa kadib darsigeena caawi intan ayuu ku egyahay aad baad mahadsantihiin la wadaaga muuqaalka cid kastoo isleedihiin oo anfacaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.